Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Muqdisho ayaa la qabsaday isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo ay si fudud uga helaan farmashiyaasha iyo suuqyada magaalada. Gabdho yaryar oo ku jira da'da waxbarashada ayaa ka mid ah haweenka sida joogtada ah u isticmaala maandooriyaha, waana sababta sare u qaaday walaaca ay bulshadu ka qabto arrinkan. Aamina Cabdi waa 23 jir, 5 sano oo ka mid ah nolosheeda ayay ku qaadanaysay qaar ka mid ah daawooyinka halista ah ee bedela ogaalka iyo shaqada maskaxda aadanaha. Sida ay ku bilowday isticmaalkooda iyo waxa ku kalifay ayay nooga sheekaysay. Bilaa waxa ugu khasbay nin dees baran ilma anaga dhex dhashay ilmihii anigii iyo markuu nagu deeriyay kuma baan camal jaceelka oo iga baxay stresskaas u bartaan. Dr. Naaji Cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ayaa weydiinay saameynta caafimaad ee daawooyinka maandoorinta loo isticmaalo. waxyaabo macna qofka uu markaas islee farxad gaar ah ka raadiyo waxyaabo aynka oo laakiin aanan meel wax sii jira ahayn oo xitaa caafimaad ahaan jirkiisa aanan macna weyn u sameeyeen waliba khatar weyn ku keeni karta. Qofka waxyaabahaas markuu qabatimo waxa isbedelayo systemka jirkiisa u shaqeynaa physiologically si uu shaqeeyo jirka. Waxaa dhici karto inuu يعني حتى هرددي كحماته waxaa dhici karta qaarkood inay hurdadii aynan helayn ilaa dawaaska isticmaalaan qaarkood inayna shaqooyinkii caadi ah tan gareyn karin tagaynin hadii dawooyinka isticmaalin waxyaabaha meelaha ugu muhiimsan dabcan uu saameeyo waxa ugu horeeya waxa waaye dhinaca neerfayaasha oo maskaxda iyo fahanka iyo macnaha qofka dareenkiisa guud wuxuu noqonayaa qof ku xiran oo saaxiib la ah oo noloshiisa ay ku tiirsan tahay muxuu ahaa dareenkiisaas. Isbedelka nololeed ee ku dhacay ayay ka sheekaysay Aamina maadaama ay joojisay 5 sano oo xiriir ah oo ay isticmaalaysay daawooyinka maandooriyaha ah. Jawi waalan waa gali jiray laakiin natiijadu waa soo arkay. Naagta dadku waalanayso waa soo arkay laakiin natiijadu waa soo arkay. Heer aan bedka waawisa ay karwaysaa gaar. Ilaa korkii laba bujina bushdey ila dhigta la iska siinaa xididada soo galay. Marka la urtumana waxa ana meeshan faa'iido ma ka arkin. Khadiija Aadan waa hooyo haysato 5 caruur ah. Gabadheeda oo 14 jir ah ayay uga taagweysay qaadashada daawooyinka maanka dooriya. Hooyo ilmoolaya yara waxaan aangeey iskuul waxay iga baratay balwad muqaadaraad daraagis gabdho iga bareen sida iskuulka la isugu raacay gabadhiyo waxaan arkay amal xumo jiif badan marka anigu hool u diran hool ka sugaa way jiiftaa marka imaad way seexatay hoosh maxaa qoweys hooy way jiiftaa leeyahay gabadha daan daba galan baare waxaan ku arkay taabuu kaniini balaayo dhan aan ku arkay gabadha hadda waxaan geeyay dhaqan celin. Siraad Maxamed Nuur oo xanaanaysa una dhaqaaqda caruurta darbi jiifta isla markaasina talooyin iyo wacyigelin siisa gabdhaha maandooriyaha isticmaala ayaa nooga warantay xaaladda gabdhaha. aad u maandooriyaha u batay fursadaanan uga faa'iideysana waxaan leeyahay booliiska iyo maxay ahtood dadka arrimaha bulshada ka shaqeeyo dhaqaatiirta hal iskaashata ma kuftaaliira aan iskaashano wacyigelin badan hala sameeyo ganacsatada ilaahay nooga cabsadana subxaan qaadirka ah dawladda wasaaradda caafimaadka ilaahay nooga cabsato oo waxa farmashiyaasha إلى ما ندوريها عن هذا دعوونين وداو داودي هلا سيو ورقد داو قف عن ورقد وذن هلا هو أمر فرمشياش إن محيط إنسان كجذي كرين داود. هوينك أو استعمالات دروغة والباتك له وعصب أو كسر كرد يسبب الشدة ما دام دروغة هل اسكت هاي جريتان كأي هرمرك ومدة كين حسن وربعين تبلن مقالة مقدشو.